السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالك سودا وهذا عافمادكينا ساتهين waxaan rajeynayaa in caafimaad aad ku joogtiin sida aniga oo kale alxamdulillaah inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta caafimaadka haysatan ilaahay u siyaadiyo amiin ya rab maanta video cusub ayaan kasoo tuuray walaalaha cusub oo igu cusub ii soo dhawaada walaalaha hore idinkana soo dhawaada ku diinba la'aantiin waa abaar roob gudud ayaan idin fidiyay maasha Allah marka maanta waxaan wadaa day in a life kale mise maalin nolosheeda kamid ah waa jecelahay ani inaan videoyaasha noocan aan daawado marka sidaa darteed ayaan badanaa u sameeyaa channelkayga videoyaasha ku jira ayaga u badan haddaa hoos u saraacdo waa arki kartiin marka saaka gabadheeda iskuul aadaysa aroortii hore pancake oo kan diyaarsantaa maanta ma la iswaalin wax la karinayo wax aan ma la isku daalinin inkasta oo badanaa aan isku dayo in ani waxaan gacanteeda ku sameeyay aan subaxdii aan u sameeyo haddii cunayso waaybo marmarka qaar waxay dhahaysaa iskuulka ka quraacanaya laakiin saaka waxaan dhahay quraacun hayay iga tiri hayay igu dhahday saa darteed laakiin subax walba waan weydiiyaa laakiin mar waxay dhahdaa maya xagga ka quraacanaya marka hadba siday rabto waa iyada mugta saakana maxaa la dhahaa mzeegayga ana I don't know waxaan filgareeyaa markaan dhaho ninkayga iyo maxaa la dhahaa iyo xaajigayga xishood ayaa dareema I don't know why ilamid ma tihiin mooshi so it's easy for me inaan dhaho waxaa ii fudud inaan dhaho my husband miss waxaa ii fudud inaan dhaho museega you know waa la qasaday over there Kenya xaggaas museeya la iska dhihi jiray even though I was not married markaa Kenya soo tagay I was like 14 and laakiin museega fudeeda ii tahay like musee inaan dhaho muxuu ahaa my husband but like when it comes to makan dhaho ninkayga mise xaajigayga like soo xishada qabta anyway shaqo u socday saaka aroortii sii baxay actually and before markaas subax ayu 5 am u baxaa aroortii hore anaga hurdeen oo bas ka tagaa asagaana isxaliyo wax warwaa sameystaa masha Allah sorry gabadheeda qaylinaysa soo gashay ana codku duuwayo marka dhaxdanka kala gooyay soo codkayga nooc kale u noqonayo hal nooc u wadid caadi waaye laakiin markaad codka kala jirtid nooc kale u noqonaya marka anyway bahalahaneeto oo shoodyaasha oo furka qabaan ayaa dhaqdhaqanaya waxaan rabaa inaan ku diyaarsado cuntooyinka like sida baastada bariiska whatever aan ku gurto wax walba aan arkin anyway caadi waan soo kilin garay halkaas saare markay soo qalalaan mise ay soo angegaan ayaan ku ridaanayaa alaabta aan rabo marka ii warama caafimaadkiina saatihiin I know videogii hore comment-ka laga xiray waan iska ogaabo because way sameeyaan waxaas gabadheeda marmar ii imaataa hadalkan ku calinayo iska hadashayno it's fine mise baby gariiska ku jira dartiisa codka looga xiro I don't know codka ma aha comment-ka wada sorry so hadda kan waa isku dadaalayaa shanqarteeda mise hadalkooda inuu ku jirin hataa background xamalayna waxay ka daawanayaan dartood in loo xiray I don't know in badan waa fura hadda laakiin wuu furan yahay comment-ka way furan tahay marka hore I don't know why u xiran maybe uu soo jigaraynayaan me I have no idea wallahi waa leeyihiin dad badan oo baahan inay comment-ka laga xiro anaga waxa comment-ka laga xiraayaan waxa sheegayna ma jirta waatana baastada ku shubta hadda kan baastada way ku badnaa oo ku farbadnaa waa ka gadinayaa midka kale ayaan ku shuban doonaa insha Allah marka waa kaasa isoo dhawaada videoga like isaara comment-ka maxaa la dhahaa share gareeya friends-kiina u sheega saaxiibayaashiina dariskiina cidnaha dhaafina aad mahadsantiin gabar meeshaaneeto waa meelahan ka hadashaa oo wax soo gelgelisay kaale aan u subscribe gareeya dhaha gacmo maxaa la dhihi jiray wadajir wax ku gooyaan maho ani si dadka loo shukaansada hataa ma aqaani marka iska fahmay ii share gareeya ii like gareeya aad mahadsantihiin soo dhawaada marka hataa wax inaa u maleynaysid inaa ka faa'iideyso
subscribe kare laakiin hadii waxba ka faa'iideynin aw malays inuu faa'iido ku lahayn oo iska caadi dhima leh waayo meeshan boring ka iskaga qaadaa marba hada hooyo aad tahay wax adig gooni ku ah inaad samaysatid waaye maadaama aad guriga joogtid hooyooyinka especially guriga joogaan oo ilmaha yar haystaan maalin walba cunug leetay kargare maxaa la dhahaa waa okay waaye in ilma tay kargareysan maasha Allah ilaahay noo dhaafo inta haysanin ilaaha siiya amiya Allah laakiin wax adiga gooni ku waa inaad samaysataa wax adiga ku farxad gelinayo laga yaabaa in adiga YouTube video aad samaysid ay ku farxad gelinaynin laakiin aniga YouTube ka waa jeclahay in badan aan jeclaa wali waa ka cagajiidi jiray hadda ayaan furtay waxaana arkay markaan video sameynayo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa waxa aniga aan jeclahay waana ku faraxsanahay in video maxalla YouTube aan furtay because markaan boring dareemo mise somehow waxaan soo qaataa kaamiradeeda aan soo qaataa dhacdhacayrko marka inaa wax adig gooni ku ah oo ku farxad gelinayo ina adiga samaysatid YouTube qasab maaha inuu ani ahaanteeda YouTube-ka ayaa ii noqday wax farxad geliyo waxaan jeclahay markaan soo gelinayo video-ga markaan duuwayo waa faraxsanahay markaan codka soo saarayo waa faraxsanahay hada iga dareemaysid moogi markaan soo geliyana waa faraxsanahay alxamdulillah laakiin adiga wax gooni ku ahay haduu yahay inaad buug akhrisid kaliya bax buuga soo akhriso meel iska aad hadee tahay inaad baxdo oo naftaada time la soo qaadatid kaliya samee hadii whatever adiga ku farxad gelina qof walba wax baa farxad geliya marka hadaad wax ku farxad geliya aad sameenin maxaa la dhahaa waa isku buuqaysaa waa isla hadlaysaa waa isla hadlaysaa like waa waaranaysaa ma ka wada laakiin you know what I mean waxaan ka wada waa fahmaysan moogta ani ahaanteeda tana farxad geliya markaan sameynayo videoga aad iyo aad aan jeclahay marka qof walba adiga idaabanayana maxaa ku farxad geliya sorry hadii aad maxaa la dhahaa dib u arkin ina ila share garey hadii kalena hada private nagu ahaada arabtina waa haysan kartaa laakiin aniga YouTube ayaa farxad geliya maasha Allah umana maleynayo inaan mar dhow dhaafi doono hadaan ka cajiso dhowr waa aragteen marna soo gelaa marna ma soo geliyay had aan YouTube-kayga almost muxuu furan yahay hadii si loo fiiriyo sanad iyo bar laakiin sanad iyo bar ma dhanno inta videoyaasha ku jiraan waayo markii iga qabatana waan soo geliyaa markii kalena maya soo geliyo bilaadan la iska yahay marmar waa cajisaysaa marmar waa maxaa la dhaxaysaa videoyaasha ma la daawanayo laakiin still maxaa la dhahaa mar walba waxaa ku fikiraa samee marka uma maleynayo wax aan ka niyad jabay inuu yahay waa wax aan jecelahayna haddana warka idinku badiya raali ahaada haddana waxaan dhaqanayaa dharka maasha Allah marka like isaara please and like isaara comment ka daartiin soo bixiya laakiin like isaara please taas aan naga codsanaya because bilooyin dhexdaas videoyaasheeda they were doing good way fiicnaayeen dad badan ayaa daawan jiray markaas aniga taabiyaal kale oo dad ay ka hadlayaan ayaan soo qadqaatay kadib dadka dadkan ku garanaynin mise de interest ku ahaan waa lagu saaraya subscriber waa lagu maxaa la dhahaa like waa lagu saaraya videogaas laakiin dib dambe uma daawanayaan because interest kuma aha always waxaa fiican waxay dadka interest ku yihiin qofku wuxuu kugu soo raacayo wuxuu interest u yahay iyo wuxuu jecel yahay kugu soo raaco laakiin topic mise hadal kale oo dadka ka hadlayaan hada soo qaadatid channelkaaga hoos u ridaya ani taas hadda waan ka bartay wax badan aan ka bartay qof kale oo hadda YouTube cusub haysta mise aan ogeyn taas iska ilaali aan dhihi lahaa because waxaan waa laga hadlayaa ka hadal camal hada usoo gelisid
ma ku fiicno channelkaaga ma fiicno hoos uu ku geenayaa dadka laakiin subscriber ay ku saarayaan haday ku arkaan marka sida darteed in thumbs up iyo sifa oo videoga uu YouTube ka kor u qaado hadii laakiin dadkii daawadaba ay ku saari waayaan thumbs up fara badan suulka ay ku saari waayaan waxa dhacaya inuu uu leeyahay videogan interest laguma aha asagana faruhu ka qaadaya dadka kuma tusinayo marka like saas oo important u yahay please like iska saara lacagna kuma fadhiso waa free adoo gacantaada la qaadaysa halahaas yar gacanta qaadaysa ina dhibtaay ma oshi laakiin lacagna ma aha wax lagu charge gareynayaan ma ajirana ka helaysa ajir ma rabtido ha like ii saarno ajirka aruurso marka miiskan alaabta ka aruurinayna hadda waan soo masixi doonaa everything indina ku arkaysiin fargashiga yaro caagana ha u bixina gabadheeda yarta iska lahayd miiska korkiisa ka helay farta le hore juluq uu siista finaanadana waa iska soo bedelay wiilkoon meeshaan ilaahiisa lehe maasha Allah wuxuu igu sameeyay aanan siiyay hoo iska qabo in buu dhaw nasiib wanaag qamaarka igama gaarin laakiin finaanadii aawatay macal dirica aqabe waxaan ku dhahay mantaqa laga dhigano xilliga dharka dhan iska bedelamka ka dambe shaqadeedana waa ogtahay iyana ugu soo laabanaa xawaaye marba hadii hooyo aad tahay oo hadana baby yaris ah haysatid hooyada way sii kala tahay baby yar hada haysatid very hard waaye waxaan ku dhihi lahaa markuu babygaaga seexda leh in yar shaqadaad u qabso tartiib hana isku waale hadda aniga deep cleaning wixii dhan hadda ku soo laabtay waayo ina adiga aad maxaa waaye recover ina sameysid waayo baby yaraad sanad ku dhawaada baby wada mogta hadana waa dhashay ana hadana uurka waxa igu darsamay corona na maxaa la dhahay ilaahay kuma tuso hadaada arkay ilaahay kuma tuso maalmo buu dadka u duceeyaa mogta aniga waxaan dhahay ilaahay waa tusin qof bil aadantii igu soo dhiga anoo walaca oo hadana uur leh ilaa hadda dhagaha faraha igu jiraan aan ku dhahay marka ilaahay idinka haayo idinkana sheekada intay noo mareysay anoo wali hadalaya ayaa gabdhahayga isdagaalayaan ay soo galeen oo buuqayaan codka ka xiray sifa oo comment-ka in laga xiro marin moogta inaan dadka isku barano qofka igu cusub aan halkaa ka barto ayaan comment-ka waan ka rabaa laakiin comment-ga cod yadiisu duu maqlo jiqlu siinaa I don't know why marka daa hooyo cusub aad tahay mise hooyo cunug yar mar dhow dhashay dadka hadalkooda isku mashquulinin maxaa la dhahaa marka recover gareen waxa ka wada naso marka baby risa haysatid inaa nasatid waaye inaa ku marka mar dhow daa baby yar dhashay mise daa hooyo cusub tahay mise ilmaha kale caadi waaye markay ilmahaada weyn yihiin kastoo yar is fine cunuga markuu seexdo habeenkii waa la seexanay laakiin markuu cunug umal u yahay ilaa oo 5 months 6 months uu ka gaarayo waa very hard marna uu soo kaca marna uu seexanaa wuxuu rabo sameynaa marka hadii aad dhahdid maalintii oo dhan ilmaantay gargareenayaa habeenkii markuu cunug seexdana guriga clean gareena inta qabanaa kana yeela maxaa misdile maani barkinta dheereysta inta yar cunugay hurdo waa hurdaya maalintii dhan ma hurdi kari marka habeenkii inta yar haysto waa seexanaya caadi waay waxaan qaban karo waa qabanaa waxaan qaban karin ma aha caadi meeshooda yaalayaan taas way hadda cleaning badan soo socda video yaal fara badan soo sameyn doona insha Allah waayo maxaa la dhahaa inta umushku jiray iyo inta oo uurka lahaa hataa waa sida idin sheegay corona haystay corona igu dhacay coronana ilaahay wuxuu uga bariyayaa inuu cidna uu ku dhicin dambe qofku ku dhaco uu ku dhaco laakiin dadkiina hore ilaahay idin ma keenaan leeyahay dadkiina kale oo wali ku dhicin ilaahay idin ma keenaan leeyahay amiin dhahay idinkana because waxaas waxa waaye wallahi ilaa hadeertan ashmi iyo ben ada idin sheegaynin almost waxaan ka soo wareegtay 8 bilood miya xasaas maxaa la dhahaa urkii uu ii soo laabtay laakiin still wax yariis sideedii hore ma ihi gacmahayga qaleelku u bilaabay ilaa hadda way qalal yihiin every 5 minutes kareem inaan mariyo waa qaleel waay markaan weel dhaqaayo markaan wax sameynayaan ugu daran tahay aad u qalalayaan farihi dhan qolfa ay ka kaceen bariga hadda qolfii way ka baxeen laakiin
qaleelkiya weli ku jira marwaba inaa kareen mariyo waaye marka ilaahay idinka baryaa inuu cidna uu soo ku dhicin baalkaaseeto wax ilaahay laga baryo waaye